kulankan oo ay soo agaasimeen guddiga loo xil saaray ka hortagga sicir bararka gaar ahaan magaalada Jigjiga ayaa lagu soo bandhigayay dadaalada ay xukuumaddu ka samaysay dhanka sicir bararka waxaana kulankan intii uu socday lagu bogaadiyay xakamaynta ay xukuumaddu ka samaysay sicir bararka oo ay ka mid ahaayeen jaangoynta qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha kan lagu iibiyo shidaalka qiimaha lagu gado khudaarta iyo kan lagu iibiyo niista oo dhammaantood jaangoyn cusub loo sameeyay waxaana sida guddigu ay tilmaameen socdo qorshayaal kale oo lagu dhimayo sicir bararka waxaana xusid mudan in ganacsatadii kulanka ka soo qayb gashay ay caddeeyeen hirgelinta qiimahan cusub ee la jaangooyey kulankan ayaa haddaba markii uu dhammaaday waxaan warays la yeelanay wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee deegaanka Soomaalida Marwa Cabdicasiis iyo la taliyaha xafiiska madaxweynaha deegaanka Soomaalida Kamaal Maxamed oo ka mid ah guddiga ka hortagga sicir bararka gaar ahaan maamulka magaalada Jigjiga kuwaasi oo ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay intii ay ku guda jireen shaqooyinka ay xukuumaddu ka qabatay xakamaynta sicir bararka waxaa jiray muddo 10 maalmood ee hadda u dambeeyay in guddi la aasaasay oo guddiga sicir bararka sida wax uga qaban lahaayeen la aasaasay in ay hawlo badan ku hawlanaayeen kulana badanna ay la yeesheen qaybaha kala duwan ee ganacsatada waxaa jirtay kulamadii isku xigxigay ee ganacsatada aan la yeelanayna waxaa qayb ka ahaa inaan la yeelanay ganacsatada khudaarta kulan in badan aan kula fagurnay khudaarta imanaysa deegaankeena Soomaalida ee inaga soo gaaraysa dhinaca deegaanada kale ee dalka iyo ta deegaankeena dhexdeeda laga soo goynayaba qiimihii lagu iibin lahaa aan runtii aad u la fagurnay iskuna raacnay qiimo go'an in ay ku iibiyaan kulankan maantana ay ganacsatada laftoodu ay afkooda ka sheegeen qiimaha ay ku iibin doonaan qaybaha kala duwan ee khudaarta qayb kamid ah waxa kale oo jira iyaguna inaan kulana kala duwan oo aan iyagana la yeelanay ganacsatada keenta niista iyo dhagaxa oo runtii iyaguna qiimo badan ku iibin jiray oo qiimaha maanta la isku raacay qiimo aad uga sareeya ku iibin jiray markii aanu la xisaabinay qiimaha ay kaga soo gadanayaan meesha laga soo gurayo ilaa magaalada intay keenayaan wixii ka baxay oo dhan wixii markaan isla xisaabinay qiimihii macquulka ahaa ee marka lagu gadi karayay aan isku raacnay inay ku gadaan bulshadana ay u naxariistaan iyaguna maanta ay bulshada hortooda ka sheegeen qiimaha ay ku gadi doonaan niista iyo dhagaxaba sidoo kale waxaa jirta inaan la kulanay iskaashtooyin kala duwan oo dhinaca basaskan u kala goosha magaalooyinka deegaankeena dhexdeeda iyo kuwan kale ee deegaanadan aan jaarka nahayba iyaguna runtii waxaan isla meel dhignay qiimo go'an inay bulshada ku qaadaan una naxariistaan waxaa kaloo jirta iyadana inaan la kulanay ganacsatada kaalmaleyda shidaalka dabcan shidaal yari way jirtaa si guud dalka uga jirta deegaankeenana saameyn weyn ku leh iyagana waxaan isla eegnay qiimaha loogu talagalay taarifka inay ku gadaan bulshadana ay sidoo kale u naxariistaan ganacsatada raashinka sidoo kale waan la kulanay iyagana waxyaabo badan baan wada eegnay kulay ganacsatada raashinku way ka duwan tahay ganacsatada kale dollar bay wax ku keenaan dollarkiina saan wada ognahay maanta qiimihiisu mid fadhiya ma aha oo waa mid isbedbedelaya marka iyagana waxyaabo badan oo isla eegnay baa jiray si guudna waxaan ula dardaaranay inay bulshadooda u naxariistaan wax macquulana ay wax kaga iibiyaan faa'iido badanna ayna raadinin waana ku heshiinay kulana kale oo ganacsatada qaar noo qorsheysanaa la kulana way jiraan hadii Ilaahay yiraahdo ma dhihi karna waan joojinay laakiin maanta waxaan ugu talagalnay bal dadaalka la wado bulshadu inay ogaato bulshadii maanta inay ogaato qiimihii ay ka gadanayeen khudaarta suuqa taarifkii ay ku raacayeen noolka bajaajta forsidu sidoo kale waxay ahayd kulamadii aan yeelanay iyo bajaajta yaryarba iyadana wixii lagu raaci lahaa halka inay ka ogaadaan ay kala socdaan bal hawlihii iyo shaqooyinkii lagu soo jiray inaan bulshada u iftiimino oo ogaadaan dadaalada ay xukuumadda iyo xafiiskuba ku jiraan kulay kulanka maanta guud ahaan dulucdiisu intaas ayay ahayd sidaan wada ogsoonahay xukuumaddu waxay dadaal weyn ay ku bixisay sixir bararkii laba u kala baxay mid waa ka caalamiga oo aynu la qabno ummadaha kale midina waa ku inaga dhexdeena oo ay dadkeenu wacyi gelin la'aan
iyo aqoon la-aan waxyaabo badan ay kalifayeen xukuumaddu tallaabooyinka ay qaaday waxaa ka mid a inay guddigan si degdeg u aasaastay guddigan oo 4 xafiisa loona aasaasay in caasimada si degdeg ah midho dhal looga keeno taa tallaabo qaadkeedii ayaa wuxuu ku yimiday waxaad maanta u joogteen halkan inay ganacsatadii ka markhaati kacayeen waxa ay maanta wixii ka dambeeyay ku iibinayaan wax keliyana imika ay nagu hadhay in aan joogtayno dabagalkeedii iyo qiimeynteedii aan joogtayno iyo sektarada kale ee dhiman oo aan galno salahan waxyaabihii nagu soo baxay waxa kamid ah kirada guryaha ayaa kamid ahayd haddaanu galaynaa bajaajta waa kan dee laga warramayo waxa loo samaynayaa qaab kale almuhim wixii dibadda nagaga imanaya mooyaane wixii wadankeena dhexdeeda ah in mid kasta qiimihiisa rasmiga ah la gaarsiiyo ayaa rajaynayna